shabakada caalamiga Shimil News oo muddooyinkii ugu dambeysay booqasho ku maraysay magaalada Harada ayaa waxaanu booqanay saraca beeraha ee ku yaala beerta Reer Xuseen Caynaan kagana beegan duleedka magaalada Harada beertaas ay ka soo baxaan khudaar kala duwan. haddaba intii beertaasi aanu joognay waxa beertani ka baxa cambaha, muuska iyo xabxabka halka dadweynuhu ay kaga baxaan bisha Ramadaan. gabadha iyadu beertani la joogto oo dhaxalhaan uu ka hadhay aabaheed ayaa waxa ay ka sheekaysay baahiyaha ku gadaaman beertaasi waxayna tidhi Bismillahir Rahmanir Rahim waa sidaad arkaysid waan beertan waa beertii ka hadhay Allah naxariistay Xuseen Caynaan anagu waxaan nahay Xuseen Caynaan dadkiisii waa ka daymka maxaan ku yiraahdaan wadno ilaahayna danaarnay inuu nala qabtaan rajaynaynaa insha Allah meel fiican aan ka dhigno in la soo eegto oo aad u wanaagsan oo bilic wanaagsan marka anigu aan wax ka yimid Djibouti waxaan u yimid beerta daraadeed inaan la tiirtiiriyo inamadan wax la qabto walka imkana ilaahay uu nala qabto anaga maanta qorshiiban qurba joogta maxaad ugu baaqaysaa qurba joogta wallahi waxaan oran lahaa horta dhulkeena inaad soo ogaatiin wixii maaragtay wax qabanaya wax qabad leh aad soo taakulaysiin taasaan qurba joogta kula dardaarmaya oo aan leeyahay ha iloobina dadkiina iyo dalkiinaba waxaan leeyahay waa inaad had iyo jeer indhaha ku haysaan waayo dadka qurba joogtu aad bay u jecel yihiin dalka iyo wax qabadkiisa maaragtay dalxiiska hadhow toole meel loo yimaado inaan meeshana ka dhigno ayaan haduu ilaahay ilaada ku rajo weynahay insha Allah marka waxaan weydiisanaynaa walaalahayo inay wixii ay nala soo qaban karaan ay nala qabtaan taasoo tuumbooyin naga maqan yihiin waxaan ku yiraahdaa anagu qof kaliya wax ma qaban karee intii aan karaanka yaga ahayd waan qabanay in wixii maaragtay siyaada ka aan walaalahayo waxaan leenahay waa dalkiini dadkiina weeyaan wax ku soo darsada waa meeshiini oo qurux badan waxaan leenahay haduu ilaahay ilaado waqtiga aad timaadaan meel aad u qurux badan oo lagu faano runtii waxaan doonayaa mustaqbalka ku rajo weynahay ilaahay haduu ilaado inaan ka sameeyno meel digaaga lagu dhaqo inaan ka sameeyno meel maxaan ku yiraahdaa lo'da lagu dhaqo ariga haduu ilaahay ogolaado taas asaasan ku rajo weynahay marka wixii ay nala qaban karayaan walaalahay haduu ilaahay ogolaado diyaar baan u nahay annaguna waxaan maaragtay aan leenahay inaguna na soo ogaada annagana shaqo nagu ogaadaan leenahay walaal beertan ayaa iyadu ah tan ugu weyn magaalada Harada isla markaasina ka kala baxaan khudaar kala duwan isla markaasina dadweynaha badinkoodu ay kaafayso beertani waana beerta magaalada Harada ugu weyn yagoona dhammaan ay beertani tahay beer ay ka baxaan khudaarta cambaha xilliyada xagaaga waxayna ku taalaa dix gudban dixda magaalada Harada Cabdisamad Maxamed Cabdillaahi Shimil News magaalada Harada.